daawadayaal ku soo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed waa barnaamijkii labaad aynu maanta duubayno maadaama ay arrinta geeska Afrika xasaasi ay marayso ku soo dhawaada warkii shiilaa waxaanu hore uga hadalnay isbeddelka geeska Afrika ka socda waxaanu ku soo khatinay dowladda federaalka iyo shirkii ka socday meesha la yiraahdo Dhuusa Mareeb ay isugu yimaadeen nimankii riwaayadda matelay arrinta waxaanu kaga hadlaynaa maanta xaaladda ay marayso meesha la yiraahdo jasiiratul waaqwaaq ee ku magac dheer Somaliland ama Hegland iyo xaalad abuurkan cusub ee siyaasadeed ee imika laynagu soo afuufay ee la doonayo arrimihii masiiriga ahaa iyo dhibaatooyinkii macnawiga ahaa iyo maciishadan dadka haysata iyo dhibaatadan haysata iyo eexda iyo magacaabista iyo ishaysashada iyo qoryaha la isla kor taagan yahay in la inagu mashquuliyo wax aan macno badan ka dhalaynin oo la yiraahdo doorasho baarlamaan iyo deegaan ayaa la idin qabanaya masaarudu hore u yiraahden ishqil naas bi anfusihim qabla an tashtaqil bik isku mashquuli dadka iyaga intaanay adiga kugu mashquulsin siyaasadda madhalayska iyo xaalad abuurkan imika yimi ee cusubi waxa uu la socdaa isbeddelka ka socda gobolka oo cadaadis fara badan ku keenaya ninka meesha jooga kana xiran yahay dhaqaalihii adduunku noocu ahaaba sida kaliya ay ugu furmaysaa waxa weeye inuu aqbalo in doorasho la qabto oo waliba isaga loo sadburiyo oo riya raaci ah ogeydeen loo ansixiyo kadar oo dib dhalin noqoy buu yiri siyaasadii madhalayska ahayd ee Taiwan iyo shirkii Djibouti ku soo galay oo maamul goboleedka rabay inuu ku ansaxsado qabiiliga ah markay soo cakirantay xaaladaha ka taagan geeska Afrika awgeed mar labaad imkana in dhalaan labaad ayaa lagu dhacay oo waxa loo cararay Masar inay ka yimaadaan niman militariya iyo diblomaasiyiin iyo niman intelligence oo nabad sugid ah oo raba inay farafareeyaan Ethiopia isaguna uu moodayo inay lacag u sidaan Masar oo iyadoo imika dawlad faashila ah oo xagga Liibiya ka ololeysa dawladda Italiya oo carbeedna ay dabada ka riixayaan dawladda super power ah ama regional power ay ishayaan qoriga dabka ana mar labaad ayaa la soo qaatay xusuusta beri aan Ingiriiska joognay in odayaha ayaa markii Ingiriiska xagga hoose ay nimankii argagixisada qarxiyeen ayuu haddana arkay Moscow la qarxiyay wuxuu qorigii dabka ahaa ee galbeedka loo wareegayay imikana ma bari ayaa la aaday oo lagu soo dhajiyay doorashadan iyo axsaabtan lala shiray ee meesha la keenay waxa la doonayaa in la inaga qariyo xaqiiqda dhabta ah ee dhibaatada dadka meesha jooga haysata iyo nabadgelyaha la ilaashado iyo saamiga siyaasadda ee dadkii bariga iyo dadkii koonfurta ka xigay dadka jasiiratul waaqwaaqda ku nool oo iyaga aan la soo hadal qaadin waayo marka horeba wax macna leh oo anigu aan doorasho meesha ka aaminsanay ma jirto laakiin waxa xaalad abuur la rabo mar labaad in la abuuro iyo 2005 ha lagu galo oo taa macnaheedu yahay inaan cidna diiwaan gelinaynin sidii aynu naqaanay in lagu marinayo ee hore aynu u baranay ee ahayd dimuqraadiyadda maamul goboleedkaana la doonayo in lagu sharciyeeyo oo lacag lagu helo mushkiladii iyo dhibaatooyinkii ummadda haystay ee dhabta ahaana aan laga hadal ee ay ku mashquulsanaato dadka iyo ummaduba waxaan macna lahayn oo ay iyagu soo samaysteen tuugtii iyo musuqmaasuqii ummadda meesha joogta dhacaysay in la siyaasiyiin lagaaga dhigo heegaysan musuqmaasuqii sidii sii socdo eexdii sii socoto ummadii baahnaydna cashuurtii 3 jeer lagu laabo arrintan waxa layna moodayaa inuu nahay dad aan siyaasadda fahansaneyn dadka dhalinyarada ah ayaa la hadlaya waqooyiga ah ee imika daawanaya tafkiir siyaasiga waxa la moodayaa in dadka laga aqli badeeyay laakiin waxaan moodaa in la matalayo filimkii loo oran jiray huruub min al-xaqiiqa in laga cararo runta ama faashi goreeyada loo oran jiray ee madaxa gelin jirtay meesha la yiraahdo ciida marka baalku uu ku soo socdo Soomaalidu hore u tiri kaadi badane waa loo gogol badiyaa anigu ma aaminsani in Muuse iyo Taani iyo maxkamadda sare iyo raayiraac ay doorasho u qabanayaan mid galbeed jooga iyo mid bari jooga iyo nin bartamaha jasiiratul waaqwaaqda ku nool midna hore Soomaalidu u tiri weyd aqalkaaga laguma waraabiyo musuqmaasuqii uu bartay u malayn maayo in uu deynayo iyo sadbursiga oo meesha ka wado waxaana idigu khatiri doonaa inagoo falanqaynteena wali wadna xagga dambe intii digreeto 40 digreeto ee intuu yimi uu saxeexay magacyada dadka ay isku reerka yihiin iyo xilalka uu ku tahay ayaan 1 iyo 2 ilaa 40 xagga dambe ajeerada idigu tixi doona distorkii meesha ay ka cabanaysay nimanka ka yimi meesha la yiraahdo Solis iyo Sanaag lagama hadal iyo Cali Khaliif waayo marka hore waxa la dhigay waa masraxiyad uu la doonayo in lacagta lagu soo furto wax sharci ah ma jiro waxa laga sheekaynayaa marka idaacadiisa daawato TV-ga qaranka ee jasiiratul waaqwaaq iyo idaacadda labadaba horumar wadooyin la dhisayo iyo cadow mala awaal ah oo lagu abuurayo qof allaale iyo qofkii xaqaa'iq ka hadlana loogu yeero qaran dumis
waxaad maqlaysaa dad lagu leeyahay waa bulshada rayidku xaggay joogtaa ummadda oo dhani jeelal ayay ka buuxdaa kuwa kalena dhaqaale ayayba isaga xidhan yihiin quutu daruurigii la cunayey ayaa laga la'yahay ama beder waxay u yaqaanaan reer xamarku afka wax la geliyo mar walbana waxaa laydugu mashquulinayaa koonfurtu way ololeysaaye eega 3 jeer ayuu labanlaabay cashuurta intii uu yimi cashuurta dadka qaadanayana waa garanaysaan oo waa dadka isaga ay isku reerka yihiin ayaa loo ururinayaa qof aan qadaynin oo gaajoonaya oo xaaskii ka biilaayahay oo meeluu aada aanu garanayn oo qof aanu shahaado aanu garanahaynin inaanu siyaasad ka hadli karaynin idinkuba waa ogtihiin waana systematic dadka loo sameeyo hore ayay masaaradu ugu maamaaday jawric kalbek yatbacag gaajaysii eegaagu ha ku dabagale waxaanu leenahay war siyaasaddaasi way soo fashilatay mana sii shaqaynayso tii diblomaasigan ah oo idinka arkaya waa mar Taiwan ah iyo mar Masar oo khatarta ka iman karaysa aad garan karaysaan masarooyadii ku dhici weyday dhaamka meesha laga qoday inay farageliso in iyaga loo soo dhunto oo lagala hadlo waxa weeye tii Taiwan ayaa tan lagu darsaday abuurka la inoo abuurayo ee aan waxba ka jirin ee macna darrada ee idaacadiisa ka baxaysa ee dhibaatada ida haysata jasiirtu waa waaqa ummadda ku nool dhalinyarada ee laydaga qarinayo waxa ka mid ah ciidamadii Somaliland oo isbaaro hor dhigtay wafdi ka timi Puntland oo laba qabiil oo dhulbahanto halka isku dilaysay heshiisiiraysa maxaa dadka uga dhala waxa in loo sheego maxayse macnaha oo waxaas ku fadhida doorashadii Somaliland waa la qabanaya waa wax macna darra tii deegaanka iyo tii baarlamaanka haddii la qabto kuwii baarlamaanka ku jiray waa idinkooga suuq ayaa laga taxaabanaya macna male waa qabiil reer u xiran in lagu abuuro cadow aan jirin aad aragto taani oo wareegaalaysanaya tukara waa maalmaha ay soo adkaato oo bilad geesi u qaybinaya dad meel allaale iyo meel ay ka dagaalameen iyo cid ay la dagaalamayaan iyo cadow jira aanu jirin cadowga jiraana uu yahay ka hargeysa dhex fadhiya ee cashuurta 3 laabaya ee 40 qof ee isku reerka dikreetada ku magacaabaya ee biyaha la wada cabo diiday ee biyihii dhulbaanta xiray ee riyaraac inuu bedela diiday ee doorashada raba sidii uu markii hore u inqilaabo ku boobay inuu uu ku galo ayaa la doonayaa in waxaas oo dhan oo jira xaaladda ka taagan waa tan aan waxba kama jiritaanka lagugu mashquuliyo oo lagu yiraahdo taani ayaa xidiga qaybinaya cadowba halka inaga soo socda dad ayaynu ishaynaa qaraabil tuqaan bay carabtu tiraahdaa waxa weeye bambooyinka carruurta lagu tuuro ee qiiqa ah markay soo mudaharaadaan si aan waxba u arag qaraabil tuqaan siyaasiya ayaa la yiraahdaa qiiqa iyo boodisku khariska lagu dhex wareejiyo oo ummadda qofkii ka fikiri lahaa xaq iyo xuquuqdiisii maqnaa uu ka fikiro doorashada waa laga qabanaya doorashada cidda uu qabanaysana aanu garanayn sababta loo qabanayana aanu garanayn haddaanay musuqmaasuqii lala dagaalamin iyo eexdii iyo kala basashadii iyo ciidanka tuutaha sita ee isku reerka ee meesha jooga sababta loo qabanaya ee macnaha ku jira wax allaale iyo wax uu yahay ma jiro nin maadara ayaa bari laga soo qabtay ama laba noo maadara oo dad dilay ayaa la rabaa in war weyn lagaaga dhigo oo wasiirro u soo fadhiistaan inuu dilana may ahayn in mar hore la soo qabto ayayna ahayd lana soo afjaro xaqdarrada bariga ka taagan ee meesha lagula wareegayo sharciyada kaliya ee Muuse Biixi uu leeyahay uu ku jooga waa qoriga reerkiisu gacanta ku hayaan ee u taani gacanta ugu hayo qaanuunka kaliya ee ka jirana waa maxkamadda uu inanka uu adeerka u yahay marna seediga uu yahay uu hayo labada qaanuun ayaa meesha ka taliya marka waa qaanuun ilqaaba haddaan lagula dhaqmin qaanuun ilqaabana wax ka shaqaynaya ma jiraan dhalinyarada reer waqooyiga waxaad ila daawataan ama abal ila dhegaysataan iminka waxaan tixi doonaa 40kii u dambeeyey ee isku reerka ah iyo manaasiibta waddanku uu ka dhaqaaqayaba uu fadhiisiiyey meesha laydugu leeyahay doorasho ayaa laga qabanayaa marka ayaa garanaysaan qofka aad la macaamilaysaan qofka uu yahay horta riyaraac ku darso oo riyaraac baa jooga waxaa taa iisii daba taalla 3dii internationalka ahaa ee guddida ku jiray waa laga saaray oo waxa laga dhigay niman farsamo oo caawinaya oo technical ah iyo guddidii hore ee doorashada taa macnaheedu waxa weeye kudka guur oo qanjow guur hore loo yiri hadduu ilaahay xoolo ku siinayo dadkeeda ayuu ku siiyaa taa dadka ayaa u deynaya inay fasirtaan masiirkii meeshan ee la iibiyey ee qabiilku ummadda kale oo dhan uu ku soo iibsaday Djibouti iyada laga hadli maayo marka waa iska macno darro meesha ka socota waa halkii uu ka yiri ninkii Khrushchev wan shirin bis lent whistle meeshan dimuqraadiyadda ka dhacaysa baasha leeda casaaya badeedka dhan walba u dhaqaada markay barato sida loo fooriyo in reer Burca ahaa waa farida tuuran jiray alif ayaa wuxuu yiri naafooday ciribtaan lahaa naani baa kabi naani wuxuu ahaa nin Talyaani oo xamar joogo biraha geliya marka lafuhu isku yaacaan nimco hadday dhimatay waa inaan dhaga nuglaadaay ummaddu waa inay soo jeesataa oo ay ogaataa xaaladda meesha ka jirta ee la qarinayo ee waxaan oo dhan loo keenay inay tahay inay isla soo xidhantay arrintii internationalka iyo tii regionalka ee mandiqada labaduba ay ku soo xidhantay
lana doonayo walba iyadoo sidaas isagu inuu dictate gareeyo oo uu yeeliyo oo raac umada ku khasbo international community-gana dibadda laga dhigo boorame iyo sool iyo dadkana kalena waxba marka hore meesha ubay olin iyo kuwa dhexda wada joogaba tii inqilaabkiina soo martay mid la mid la mariyo bal wareegtadana ila dhageysta aan qof kor istaagay meesha la dilay dimuqraadiyad ayaa ka jirta oo waa la isku dooranaya si indhihiinu macallin idigu noqdaan daawadayaal bal arrintan ila eega dimuqraadiyadda inta digreeto ninka Muuse Bixilayaado waa inaga soo hordhigay liiska aan halkan idiga akhriyo istayaal aan halkan idii akhriyo magacyada oo kuwan liiskii imika hor yaala inta qof ee uu digreetay isagoo gacantiisa ku magacaabay isagoo miyirkiisa iyo maankiisaba qaba oo intuba heegay yihiin ama ay habar awal yihiin marka inuu afka ku ballaarino meesha la idin leeyahay doorasho ayaa ka dhacaysa wuxuu magacaabay xoghaynta madaxweynaha oo reerkiisa waxa uu magacaabay agaasimaha cusbitaalka Hargeysa iyo agaasimaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa gudoomiyaha maxkamadda sare oo iyaga gudoomiye ku-xigeenka maaha koobaad gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare oo isla reerkooda garyaqaanka guud waa saddex aan israacin ba caalamka hada waxaan ka shaqeynay meesha la yiraahdo Jamaica garyaqaanka guud taliyaha ciidanka qaranka waa ninkii Tani ninka Maleeshiyada horkacaya taliyaha ciidanka dabdamiska waa laba ciidan baalkaas ka maray taliye ku-xigeenka sirdoonka ma sha Allah waa dimuqraadiyad rasmi ah oo doorasho ka soo socoto taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta hanti dhowraha guud ee qaranka maareeyaha dekedda Berbera wasiirka maaliyadda wasiirka gaadiidka iyo jidadka wasiirka biyaha wasiirka isgaarsiinta wasiirka madaxtooyada wasiirka duulista waxaan idin tirinayaa waa isku reer waana ogtihiin meesha wax ka socda wasiir ku-xigeenka qorsheynta qaranka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maareeyaha aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka maareeya ku-xigeenka hay-adaha dhowrista tayada waraaqdiba wali hortaala aan idin akhriyaya agaasimaha guud ee banka agaasimaha guud ee waxbarashada agaasimaha guud ee madaxtooyada agaasimaha guud ee qorsheynta agaasimaha guud ee maalgashiga waxa weeyaan ilaa ma sha Allah maala nihaaya baa loo jiray xisaabta marka la dhiganayo infinity-ga agaasimaha guud ee maalgashiga agaasimaha guud ee cadaaladda agaasimaha guud oo wada wasaaradda waxaan ka sheekeynaya wasaaradaha ka reebaya ee shaqaalaha agaasimaha guud ee gaashaandhiga waayo gaashaandhiga umada kala dambe qaban karto in taliyaha iyo agaasimaha guudba ay wada joogaan wasiirkuna waa nin iska muxallala oo meelaha laga soo qabtay gudoomiyaha commissionka tamarta barasaabka Saraar barasaabka Selel barasaabka gobolka Saaxil barasaabka ku-xigeenka Maroodi Jeex barasaabka ku-xigeenka Gabiile safiiradii ragii waaweynaa ee musaqafiinta ee safiirada habay bakana inoo bilaabmaya way umada kale waxna ma qorto waxna ma akhrido safiirka dalka Norway waa ninka barnaamijka ka soo duubnay safiirka Djibouti fadhiya Taiwan meeshii political suicide-ka lagu galay deebar dhawaan loo magacaabo kama sarna uu soo socdaa imika waxa la yaabaha laga wada hadlay ka mid oo ku soo dari doona barnaamijka dambe safiirka Jarmalka aqoonsiga halkaas uu ku buuxaaday taasoo safiir baa inuu soo helay oo ragga wada aqoonyahanka xubin commissionka doorashooyinka raacnada uu raacsan yahay oo isaga u shaqeynaya laba xumood oo commissionka maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ya salaam musuqmaasuqi ayaa la dagaalamaya laftiisa laba xumood oo commissionka qandaraasyada qaranka meelna kama maqnaan karaan waayo umada inta kale waa muxallal iyo buuxi meelaha banaan iyo igaga dar laba ka tirsan commissionka la dagaalanka AIDS-ka waa dhaqaatiirtii waaweyneed ee caalamka ka soo baxday inta imika aynu gacanta aynu afka ka soo saaray aynu akhrinay waa intuu gacantiisa ku saxeexay inta iyo marka la isag dhigo umada meesha ku nool wixii ka soo haray idimaan tirin inta taliya ciidan ama taliya bilays ama taliya jeel ee kale meesha jooga 300 ee mushaariga ahaa idii kuma darin 2,000 nin ee yana mushaariga gaarka ahaa ee mustambeedka ahaa idii kuma darin 12 shaqaalaha idii kuma darin dadka waxbarashada dibadda loo tiro idii kuma darin saraakiisha dhayliga ee ciidanka dhayliga ee qabiiliga ee la tababaranayo idii kuma darin inta contract la siiyo ee la baayac mushtareeniyo idii kuma darin maayaradii aynu isla naqaanay idii kuma darin inta dibadda joogta ee ku xagafsata afkeeda ee lacagta ku qaadata ee afku xooglaha ah idii kuma darin marka waxaan idigu leeyahay waa guul iyo gobonimo waa dimuqraadiyad dawladda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam ka qurux badan ayaa halka inooga soo socota doorashadaha loo diyaar garoobo qof iyo codka ah ee jasiiratu waqwa ka dhacaysa dhammaantiin waa mahadsantiin